halkan daawadayaal aan taaganahay waa kaamka kulmis ee ku yaala deegaanka Ceel Jaalle ee duleedka bari ee Beledweyne. kaamkan waxaa ku nool dad ka soo barakacay fatahaadii webiga Shabeelle dhawaan oo ka sameeyay qaybo ka mid ah xaafadaha Beledweyne. dadka halkan ku nool ma haystaan hooy, biyo, cunto iyo sidoo kale caafimaad intaba. afraxow gurasiyaad oo ka mid ah dhalinta reer Hiiraan isla markaana dhawaan gobolka Hiiraan dib ugu soo laabtay ayaa maanta noqday shaqsigii ugu horeeyay ee ka damqada qayl dhaanta qoysaskan barakacayaasha ah ka soo yeeraysa. waxa uu maanta soo gaarsiiyay gurmad biyo dhaamin ah iyadoo oo in ka badan ilaa 2 booyad oo biyo ah kaamkan la soo gaarsiiyay taa oo ay ka faa'iideysteen qoysas aad u badan oo la daala dhacayay kharaad aad u badan. maama badan intee soo gaaraysa balaa waa dhigi kartaa culays isku dili biyo ma oo lagu soo gaarsiinaa fuusooyinka la soo arda biyo laga dhargay wax la weynin biyo ka jirka qaar ka mid ah dadkii samafalka biyo dhaaminta ah oo u sameeyay maanta samafalay afraxow gurasiyaad ayaa warbaahinta la hadlay waxayna u mahad celiyeen dhalintan isxilqaantay. waa mahadsantihiin waa wiilashayni biyaha waa u baahnayn baad waa u baahannahay barasho wanaagsan madaxiina allaha raajiyo wixii idin dhala ilaahay ma cadaabo adinkana dhacdhaca ilaahay dhinaca ka mariyo cibaado suuban cimri raaga allah idin siiyo cibaado suuban cimri raaga allah idin siiyo ilaahay aan ka barinay baayada waa u qabnay hooyay waa u aamanay waa u baqtinaynay aniga hadda caagaan la maqnaa la iga ciyay ka waran aan cid u qaaday waa mahadsantihiin wiilal jiro ilaahay madaxiina raajiyo waa mahadsantihiin walaalayaal waa mahadsantihiin ilaahay mahadiisa waa budad waraabistan aadan oo oonayna waa mahadsantihiin barakacayaashii Ceel Jaalle soo barakacay magaalada ka soo barakacay walaalahayaga waana caawiyaan waa mahad celinayna walaalkii afraxow aad iyo aad u mahadsan yahay biyina si nabadaan ilaahay nooga soo baxshay ninkaan hadda biyo dhaamin uu bilaabay aad iyo aad u mahadsan yahay soo uu xilqaam oo isku xilqaamaan la rabaa cid walba oo dhalinyaro ah magaalada joogto inay isku xilqaanto ilaahay mahadiis ah nimankan dhalinyarta ah oo muxuu ahaay u soo gurmay dadka masaakiinta ah muxuu ahaay soo gaarsiiyeen wixii ugu horeeyay oo muxuu ay tawanayeen ama ka bilaabaneysay muxuu ahaay baahidooda ilaahay mahadiis muxuu ahaay ama ka bilaabaneysay baahidooda ugu horeysay sida biyaha waa ku mahadsan yihiin 100% muxuu ahaay ummadda islaamka ah wuxuu ilaahay faray wadadooda ay ku taagan yihiin annagana waa u mahadnaqaynaa hadduu muxuu ahaay nahay ummaddii barakacayaasha waa mahadsan yihiin dhalinyarada ka soo gaaray dadkan oonka u baqtiyay ani waan arkay inay biyo la'aan yihiin saas darteedna aniga aaladda Facebook waan u dhigay maantana alxamdulillaah dhalinyarada noo soo gurmatay waa u mahad celineynaa kuwa kale oo na daawanayana eegana sidoo kale dadkan u jeedaan xaaladda ku sugan yihiin biyo bas maahan xaaladda masquulaan way jirtaa dada bacdan buluuga u jeedaa gada karina meeshan joogo ma garate oo bacaas kala daashka u dhisan yihiin marka waxa u heli kartiin insha Allah idinka soo qaado kuwa kale to ayeen garabkooda ahna sidoo kale ayeen gurmad la soo gaaraano dada teendhadan gadan karina joogo meeshan ma fahanteen oo roobka ma koodo dadka teendhada la galaya arna anaga habeen ugu dambeyn samafale afraxow gurasiyaad oo loo yaqaano Asad Joy oo la hadlay warbaahinta ayaa ballan qaaday in biyo dhaamintan uu sii wadi doono ilaa iyo inta uu ka gaarsiin doono dhammaan deegaanada loo barakacay ee fatahaadda webiga Shabeelle dadka ay saameynta ku yeelatay ay dhawaan gaareen. bismillaahir rahmaanir rahiim saaki waxaan ku sugannahay deegaanka Ceel Jaalle ee ku soo barakacday dadkii ka soo baxay magaalada iyo nawaaxigeedaba waxaan aan aad iyo aad aan u arkayna aan social media ka daawanay ama aan shalayba xog agaal u ahay biyihii oo la isticmaalayo waa noloshu waa baad iyo biyo oo aad iyo aad shalay loogu dhibanayo oo foosto biyo $6 $7 laga siinayo qofka soo barakacay asigaba u baahnaa in la gargaaro saaka marka annaga baaqi ka jawaabayno waa soo gaarnay deegaankaana soo gaarnay waa dhowr booyada biyaan soo gaarsiinay insha Allah hadana booyada hadda waa faaruqeen hadana waa la soo dhaamin hadana meelaha kale saas baahida ugu jirtaan gaarsiinayna aniga iyo walaalkay Baashi Qaasim Shiil ayaa xalay barnaamijkan aan aad iyo aad macnaha u falanqeynay ogaanay baahida kuwaad loo baahan yahay in laga jawaabo ay noqotay biyo dhaaminta insha Allah marka aad iyo aad aan u sii wadaynaa barnaamijkan oo biyo dhaaminta ah meel alla meesha baahi biyo ka jirta biyaha waa gaarsiinayna annaga dhalinyarada nahay dadka magaalada iska leeyahay nahay xoog lagu tashanaynahay marka dhaqaalo iyo xoogba haday noqoto labadaba marka diyaar u nahay in ummadan aan la garab istaagno insha Allah waxaan rajaynaa dhalinyarada kale
iyagana sidoo kale inay sameeyaan meesha biyo bas uma baahna baad ma lahan daawo ma lahan meelo fiican oo hadda la dego ma lahan dadka bacay roobka xataa uga gambada ma lahan insha Allah welina barakaciya weli socda xataa weli si fiican xataa ummadda ma u soo saldhiganin musqulaha waa u jeedaan oo iska musqulaha xataa ma haystaan dumarkii iyo manaha rag manaha in la musqulo kala xadidi karo oo lagu wada dhuumo karo ma lahan waa xaaladda marka xaalad nolol aad iyo aad u xun hadda meeshan uga jeeda marka insha Allah waxaan rajaynaa in loo soo gurmado meeshan gurmad qaran ay u baahan tahay ummadda muslimiinta beesha caalamka shacabka Soomaaliyeed meel Allah la meeshii joogan inay u soo gurmadaan dadka masaakiinta because dadkan waa dadkii manaha lagu janno tagi lahay maanta sadaqa jaari hadii la gaarsiiyo waa dadkii lagu janno tagi lahay walaalkay baashi qaasim shiila asna maxaa leeyahay aad iyo aad u maasan tahay tabaracadaadii iyo waxa soo dhiibtay dadkii waa gaarsiinay inta dhimanna hadda booyada hadda markii la soo dhaamiya insha Allah iyagana gaarsiinayna dadkan niidooda iyagana qeyr u sheegaan annaga gar taagan dhalinyarada xoog iyo dhaqaale wax walbana inaan ku bixino diyaar lanahay waa maxamed ibraahim siyaad muuqaal maqalbaahiyaha caalamiga ah ee Hiiraan-Bile bartamaha kaamka kulmis deegaanka Ceel Jaalle duleedka bari ee Beledweyne